الوفا خبروني وين التقي لي خليل عوني على أمر ديني للخير نعم الدليل الوفا خبروني وين التقي لي خليل عوني على أمر ديني للخير الوفا خبروني وين التقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد درس كمان لو قندي وحو كتاب سنة أصحاب الأخدود قصة ينكي أمضي هركا دعي يا مسلمين تاها علماء التاريخ قار كمدي waxay yiraahdaan waxay dhacday ahdigii masiixiyiinta ama dad ahlu tawxiid aha oo nabi ciise dadkii rumaysanaa ahaa bay ku dhacday bay yiraahdaan waxay sheegaan inay najraan meeshan loo yaqaan ka dhacday waxay sheegaan علماء الآثار in hadda meelahoodii la qoday qayb kamid ah waxay sheegaan in godadkii iyo gubitaanadii iyo wixii hadda culimada ilaathar qayb ka mid ay qodeen laakiin markaad soo duubto quraanku iyo sunnada nabigu kaleey salaatu wasalaam qisaska markay soo arooriyaan ma soo arooriyaan inta badan iyagoo bitafsiila qofkii qisada qabsatay iyo ablaasha magacyadoodii iyo meeshii ay ka dhacday iyo magaalada magaceedii iyo taariikhda waqtiga ay ahayd iyo tasalsulka ay lahayd فانكي حديثكم انت بدن قصصك وحي وصوب بندقان قابة إلهي وحلي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قصوينك أنبياء يدد كاس الله وكور رمى يقصدوا ذا وحا قصوا جنب إلهي عبرة هذا يا وحي وقصوا جنب هيدتك عقلي عليه قرآن كمركها قصص تربى ذنبك صاروري قصص كاسي ترى بدن له أو قال يا مسلم بله قال إلى هيك ورمي فرعون يا نمرود يوم حال هذا هامان يا قارون يا قوة كان وحي هاي انداد خير بلياله نبي الله كورمي كو النبي الله يبى الله كورمي عندما مسلمين يقول استال الله كورمي كو لقى حق بديا الله كورمي قرآن كإلهي سبحانه وتعالى وحين صوب برنجية صفحة من تاريخ البشرية آدم لقى صوب بالآباء عليه السلام إلى ما أنت تاريخ بني آدم كقيبة كمدة لكن وحلا ينوق صوب برنجية قاب سي ينوق فايدة سنه قصة ما ملك مؤتمر كي يقول طلق لنا محاضرة أن يالته وقصة الله إلى أصحاب الأخدود ولدي قدتك قصة قرآنك سكو بمبو ورمية سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد سورة البروج وقصة الله كقول ربي سبحانه وتعالى محدثين وحي ساء روريان حديث صهيب الرومي صحابي اللي ورنشري وساء روريي حديث كاسي حكوية على صحيح مسلم وحكولوكي على إمام الترمذي في سننه كتاب التفسير وحكولوكي على إمام أحمد في مسنده وحديث صحيح يسونه والنبي عليه الصلاة والسلام قصة نبغى وكجور رميه مفسرين توحاني لي نكاسي وحويان هي قصة طني وقصة يقصى أرورتي أصحاب الأخدود
qisada tani duuduub ahaan waxaa ilaahay kaga warramayaa subxaanahu wa tacaala koox mu'miniina oo ilaahay rumaysay iyo boqor gaala oo isagu ilaahay diiday ama dadkaba rabbi u sheeganayay wixii dhex maray oo ah inuu godod intuu qoday dab ku shiday dabeetana iyagoo nool uu ku guray qur-aanku qisaska uu ka warramay mu'miniinta iyo gaalada dhex maray waxay yidhaahdaan mufasiriinta rag ka midii 3 qayboodba way u soo arooraan waxay soo arooreen iyada oo kooxdii mu'miniinta ahayd ilaahay badbaadiyey kooxdii gaaleedna ciqaab lagu dabargooyey wax dambena aan laga sii sheegin kooxda mu'miniinta markii la badbaadiyey kadib wax dambe ku dhacay aan laga warramin qisatu Saalix qisatu Huud qisaskaas oo dhan waxaa soo aroora bay yidhaahdeen qur'aanka iyadoo gaaliya muslimiinta isqabteen ilaahay gaaladii tirtiray muslimiintiina dhulka la makansiiyey oo xoog iyo dowlad weyn oo jirta ay noqdeen sidii fircawn iyo nebi muuse wixii dhex maray fircawn waa la halaagay reer banu israa'iil dowlad mumakkan ah oo ballaadhan ayaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya fircawn dabadii jirtay muddo badan oo boqorra yeelatay nebiya ah nebi daawuud nebi sulaymaan ambiye kale oo tiro badan leh reer banu israa'iil bale ilaahay wakhtigooda iyo aan dunidaba ka fadilay wuxuu kaloo qur-aanku ka warramayaa masaladaa cagsigeed oo ah gaaliya muslimiin inta murankaasi dhex maray muslimka inta gam laga siiyey wax ciqaaboo dunawiyana aanu qur-aanku ka warramin waa qisadaynu maanta dul taaganay qisadaynu dul taaganay qur-aanku wuxuu ka warramayaa asxaabi اlkhduud in la gubay laakiin wax ku dhacay qoladii gubtay qur-aanku ma sheegin lama odhan iyagana dhulkaa lala gooyey ama balaayo kale ku habsatay ama wax kale ku habsatay wuxuun baa la sheegay in qoladaasi la gubay waxaa kaloo la sheegay aakhire isna inuu ilaahay duul gubi doono ina aladiina fatanuu اlmu'miniina wاlmu'minaati uma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu اlxariiq ilaahay isna aakhire inuu dad gubi doono ayuu ilaahay ka warramay laakiin lagama warramin iyagii wax ku dhacay qisada tan baynu markaa isdul taagaynaa qisada tan inta badan dadku qisaska waa garanaya ama qur-aanka waa la akhriyey laakiin waxaan isku dayi doonaa intaan guud maro mawaadicda ama meelaha bal culammadu waxay ka tilmaamaane cibarkaa inaan wax ka mida tilmaamo إلهي سورة القرآن كي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود انتو دارتي سبدا بروج تلبان كو دارتي برجوغا أسل كيسو وقصورته أما وحصونته ودفايسيدا لقلية قلعضا هي ميلها ووين دادكو اسكو إلاليان وحكا الله إذا مناجزها شارع أما قصورته أبراج وطبقات كقصورته waxaa kaloo culimmada ay ku tilmaameen inay yihiin meelaha kan socodada xidigaha sida dayaxa ama cadceedda meelahay degaan manaasishana buruuj waa la yidhaahdaa ta la yidhaha 12 minzil buu degaa ama 12 burji dayaxna la yidhaha 28 burji buu degaa qaabkaa looga warramo ilaahay wuxuu leeyahay cirka kan buruujta iyo manaasisha u saaxiibka ah baan ku dhaartay wasamaa'i daati lburuuj واليوم الموعود ما لنت الله يبوهي بان كدارت إيه وشاهد من حاضري إيه ومشهود كل حاضري أما وشاهد من مرخاتية ومشهود كل مرخاتية أما لغو مرخاتي إلهي وحد المام يا سبحانه وتعالى صدح شيء وكدارنا مدوا والسماء ذات البروج من يوم الموعود أحاديث النبي واحد كنت المام يوم الموعود كيلو مالته قيامية waxaa kaloo soo arooray xadiidku inuu sheegayo shaahidku inuu maalinta jimcaye waxaa kaloo soo arooray xadiid sheegaya mashhuudku inuu maalinta carafaye haddaad doonto saddexda maalmood ka dhig haddaad doontana shaahidkiiyo wa mashhuudku waa wax kasta oo makhluuqa bay noqon karaan ilaahay markuu dhaartay wuxuu ku dhaaranayaa qutila asxaabu اlukhduud ay laqad qutil asxaabu اlukhduud waa la laayo la nacdalay godadka kuwii u saaxiibka ahaa godkii baa laga bedelo annaari daati alwaquud baa la yidhi
kuwa saaxiibka naarta horitaanka leh ama xaabada wadata النار ذات الوقود صفة الوال لمن كان سيوا محي قورما لنا عضلي إذ هم عليها قعود بقردن يقولن قالت صفات كلها يوم حكم إذا ما يلين وقرا مسلم كا اللين تودا يكت للدودين لين تودا أي معان سدين كأنما رواية لطاونية بين آدم كوحيابان ملاهيده وضاوضه تذكي أنت قدد الله قضي ayaa dab lagu guraya dumar iyo caruur iyo cid walba lagu guraya madaxduna ay daawanaysaa waxa dareemaysaa bini aadamku markuu lumo xad inuu gaadho xayawaanka muftariska uu ka dareeyo xayawaanku wuxuu cunayo qabsadaa laakiin bini aadam intaad gubtay inaad gubistiisa daawato iyo siduu u huruushoonayo iyo baruurta ka sheelmaysa iyo siduu jacjacleeyahay waa manzila cajiiba ilaahay qoladan wuxuu ku sifeynayaa maantana waa la mid bini aadamkaasaa la tumayaa baman balaayo naabaallo dabeetana tviyada laga daawadayo waa la isku daawanaya bini aadam la gubayo mararka qaarkoodna waxaa la yidhaahdaa markay dumarka iyo carruurta iyo waxaa ku dhacaan iyagaa taagnaa meel qaldan bay yidhahdaan gantaalka qolaa loogu talagalaye iyagaaba taagnaa meesha qaldan oo iyagaaba marxuum qaldaan weeyaan isagaa demiga lahaa ayan kaanat ilmasala ilaahay qur-aanka wuxuu ku sifeeyey dad mu'miniinoo la gubayo iyaguna ay daawanayaan id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna shuhuud ba ilahi leeyahay subxaana ilahay wuxuu tilmaamaya wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllahi alcaziizi alxamiid dadka kan jurmiga iyo dembiga ay galeen waa maxay wax kaloo dembiyo ay sameeyeen ma jiraan baa ilaahay yidhi inay rumeeyeen mooyaane rabbiga casiiska ah wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllahi alcaziiz alxamiid ilaaha lama hadiyo ee xoogga badan leh inay rumeeyeen baa dembi looga dhigay ilaahayna waxa ay samaynayaan maxay waa shaahid ilahay intaas ku koobsaday waxa ay samaynayaan inuu isna markhaati ka yahay wallahu calaa maa yafcaluun inuu alla shahiid ka yahay isna arkayo ayuu ku koobsaday qisadatan haddaan iyana guud maro xadiidka nebiga ka soo aroray calayhi salaatu wasalaam maalan riwaayada imaamu muslim waxay sheegaysaa nebigu wuxuu leeyahy kaana malikun fii man kaana qablakum nebi baa jiray boqor baa jiray dadkii idinka horreeye ka mid ah boqorku wuxuu lahaa buu nebigu yidhi nin saaxira boqorrada dunidu inta badan kama maarmaan cid ay ku tiirsadaan cidda ay ku tiirsadaan midi waa acwaantiisa iyo askartiisa iyo xooggiisa iyo waxaa haddana baqaa ku jirta uuna ah bini aadamka kale waa kugu maqan yahay markaa cid qaybka uga warranto iyo sida wax noqon doonaan buu jecel yahay hadday dowladdu dowlad mu'minada tahay ilaahay bay rumaysaa subxaana wa tacaala ilaahay bay qaybka ku aamintaa laakiin dadku inta badan kama maarmaan sixiroolayaasha iyo kuwa faaliyayaasha iyo kuwa qaybka ka warramaya kuwa waxaa laga yaabaa dadku inay is yidhahdaan imika dowladahan cilmaanigii iyagu waa ka horumareen waa been kuwa maanta jiraana sidii bay weli u isticmaalaan dunida maanta joogtaana weli sidii baa loo isticmaalaa falalowyada iyo saaxirada iyo waxaas ilaahay nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninkii saaxirka ahaabaa markuu gaboobay ee boqorka sixirka u samayn jiray ayaa wuxuu boqorkii ku yidhi war waan gaboobay ee waxaad ii soo dirtaa wiil yar oo caqli badan oo aan baro cilmiga sixirka ii soo saar wiil baa loo soo diray markaa yar oo la yidhi wiilkaa sixirka bar wiilku halkii madrasadii sixirkee uu ku socday ee ninkaa sixirka caalimka ku ah markuu u tegayo sii socdo dariiquu sii mari jiray wuxuu ku arkay sawmaca nin raahibi leeyay nin raahibo oo wadaadoo meel deggan ayuu arkay dabeetana wadaadkiibuu iskala yaro fadhiistay wadaadkaas muwaxidka ee diintii nebi ciise ka tegay haysta ayaa wax u sharxa way cajab gelisay wixii wadaadkani u sharxayay hadhowna saaxirku uu tagaa saaxirkuna wixii buu u soo sharxaa wuu ka soo noqdaa gurigooda markuu sii socdana haddana wuxuu soo maraa wadaadkiiyo wadaadka in kaloo